waxaan si khaas ah u salaamayaa ardayda quruxda badan leh halka hortayda fadhida oo ay tahay maanta maalintoodii ubaxa aadka u quruxda badan leh waxaan leeyahay congratulations mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadkii tacabka soo geliyey halkaa maanta ay joogaan soo gaadhsiiyey waa shaqaalaha jaamacadda Hon International University oo hiyo hooba la soo garab taagnaa dhammaan qofka ugu sarreeyay lacagta ugu hooseysa si ay ardaydani wax u noqdaan alxamdulillah waxa mudnaan khaas leh waalidkii huray in juhdigooda ay geliyaan dadaal badan la geliyaan ardaydoodu inay maanta sidan oo kale halkan ula farxaan waalidiintana waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin ardaydana waxaan leeyahay maanta waa maalintiini congratulations time ko yar aawadeed anu in yar baan ka hadli doonaa waftiyo kala duwan baa inoo jooga wafti aad noogu qaaliyaa jooga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland waxa jooga wafti kale oo aad noogu qaaliya waa laba wafti qolo waxay ka socotaa Haramayo University qolo waxay ka socotaa jaamacadda Jigjiga University waxa si khaas ah u soo dhaweynayaa dhammaantood dadka naga ajiibay inay noo yimaadaan nagalana soo qayb galaan xafladan aadka u quruxda badan leh ee wanaagsan ay jeclaysteen masaafo inta leeg inay u soo maraan qaarkood one day bay u soo socdeen qaarkoodna waxa laga yaabaa ilaa saaka xataa inay hurdadii nooga soo kaceen soo kalheen uu ka mid yahay madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo wasiirka caafimaadka oo inagu waxaynu nahay jaamacadda kaliya ee backgroundkeeda ku astaysan caafimaad waxaynu bixinaa caafimaad aad baan ugu faraxsanahay in wasiirka caafimaadku maanta qayb naga ahaado nalana joogana waxaan si aad u soo dhaweynayaa DG-ga waxbarashada ma aha markii koowaad noo yimaado isagana waxaan leeyahay welcome haddaan programkayga si toos ah u guda galo in yar baan jecelahay inaan ka taataabto mudane madaxweyne ku-xigeen waxaad maanta noogu buuxa 11 bilood maalintii xadhigaad ka jartay isbitaalka geeska Africa ee Horn of Africa Hospital wuxuu qabtay program aad u kala duwan wuxuu keenay dhakhaatiir specialist iyo aad u kala duwan oo waliba hirgalay muddooyinkii ugu dambeysay 3 bilood aan idhaahdee markii ugu horeysay waxaynu ku bilownay dhakhtar emergency surgeon oo wad ka jirin gobolka ilaa Somaliland wuxuu dhakhtarkaasi shaqadiisu si toos ah u taabanaysay gargaarka degdega ah inuu ka hawl galo hadda waxaanu ku darnay mudane waxaan keenay dhakhtar internistiya aadna khibrad dheer u ah waa dhakhtarkii background badan wuxuu ku leeyahay kililka oo jaamacadda Jigjiga University master programka dhakhtarkii dhaqaajiye weeyaan waa Dr. Cali Nuure wuxuu haystaa 2 master mid ay tahay internistigaasi ay tahay midna iyo mid kale waxa kale oo dhakhtarku si toos ah uga hawl galay uu dhaqaajiyay isbitaalka Meles Hospital hada isbitaalka referalka loo yaqaano wuxuu ahaa directorkii koobaad ee dhaqaajiya isbitaalkaasi waana isbitaalka ugu weyn kililka dhakhtarkaasi waxaan qabaa inuu wax weyn ka bedeli doono isbitaalka Horn of Africa waxaan qabaa inuu juhdigiisa iyo dadaalkiisa uu gelin doono waxa kale oo si khaas ah u tilmaamaya dhakhaatiirtan hadda soo kordhinay waxa weeyaan dhakhtar orthopedic dhakhtarkaasi wuxuu ka shaqeyn doonaa weegiiba 3 cisho ayuu ka shaqeyn doonaa isagana waan soo kordhinay waxa kale oo soo kordhinay dhakhtar general surgery isaguna sidoo kale 3 cisho uu shaqeyn doonaa dhammaan markaan inta kaga imaado waxaan si khaas ah u dul istaagi doonaa jaamacadda hadda inala joogta ee Haramayo University oo xiriir hadda uu noo socdo oo insha Allah rajaynayno wada shaqeyn fiican aan yeelan doono haddaan intaa kaga imaado dhammaan jaamacadaha iyo isbitaalka mudane madaxweyne tiimkan maanta qalin jabinaya waa dafcadii afraad waxay ka kooban yihiin 113 waxay iskugu jiraan 4 kulliyadood waa public health officer
nutrition nursing iyo midwifery haddaan intaa kaga imaado waxaan si khaas ah u tilmaami doonaa roolka ama doorka uu nagu leeyahay mudane madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici waa shakhsiga kaliya ee odhan karo dhalinyarada uu ag taagan yahay wuxuuna jecel yahay hiyo hoob uu la garab taagan yahay waxa taa ku cadaynaynaa marka laga reebo hal qali jabin dhammaan inta qali jabinoodan u yeedhnayba time-kaan u sheegna xataa waxba kama bedelo waxa kale oo tilmaamaya rool weyn wuxuu ku leeyahay gobolka wuxuu ka mid ahaa guddigii aasaasay wadadii ugu horeysay ee Soomaaliland rool weyn buu ku lahaa waana wadadii ugu horeysay ee gobolku u yeesho waxa kale oo ka mid ahaa guddigii ugu horeeyay ee la doortay ee dawladda hoose member buu ka ahaa waxa kale oo ku jira oo qayb ka ahaa shaab oo wada ogtihiin biyaha maanta Soomaaliland marka la yiraahdo cid ugu biyo helis badan inay gobolka u daltahay taadina shareholderna uu ka ahaa memberna uu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane Cumar Cali Cabdilaahi agaasimaha guud ee tacliinta sare Axmed Muuse Muruud gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe murashaxa xisbiga wadani mudane Maxamed Cali Cabdi gudoomiyaha gobolka golaha xubnaha deegaanka marsharafta kale ka timiday Hargeysa ee uu hogaaminayo Maxamed Warsabe marsharafta ka timiday Haramaha University ee uu hogaaminayo Dr. Lamesa Oljira iyo Master Olta iyo Maxamed Yuya dhaqaatiirta iyo marsharafta ka socota jaamacadda Jijiga University Dr. Maxamed Calays iyo Dr. Nasir aqoonyahanka kala duwan ee halka soo fadhiya dhammaan bahweynta caafimaadka waxbarashada salaadiinta saxaafadda culimada aqoonyahanka waalidiinta ciidamada ardayda qalin jabinaysa dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib marka hore waxaan soo dhaweynayaa wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan maanta waxaynu fadhinaa dufcaddii afraad ee jaamacadda Horan International University oo ay ka qalin jabinayaan 113 arday including Somaliland and that is why we are here today invited by the Horan International College so we are looking around maybe to give hope for the graduates of today that education has no end. You are getting your first degree today, but that is not the end because education is a lifelong process. So you have to consolidate your academics in postgraduate education, in research, problem solving, and a lot is waiting for you ahead. halkan fadhido wajiyadooda aad u nuurayaan waxaan leeyahay hambalyo bagaad u soo gaadheen maalintan qiimaha badan sharafta badan farxadda badan annaguna aad baan ugu faraxsanahay oo uuna idinkuna aad baad ugu mahadsantihiin inaad nagu marti qaataan xafladan qiimaha badan waxaan si gaar ah u salaamayaa waalidiinta halkan fadhida ee ku dadaashay ardaydan maanta qalin jabinaysa inay heerkan soo gaaraan arday walba waxaa riixayay daba taagnaa ku dadaalayay ku dhabar adeygay dadaal aad u badan ku bixiyay wax walbana u horay inuu maanta halka fadhiisto waa waalid marka waalidiintu qiimo gaar ah bay naga mudan yihiin mar walba aniga oo ku hadlayo magacayga iyo magaca jaamacadda iyadaba aad baad u mahadsantihiin inaad maanta halkan nagu casuuntaan aan inaga qaybqeelo waxaan aad iyo aad u hambalyaanayaa ardayda qalin jabisay iyo macallimiintooda iyo madaxdoodaba iyo intii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waxa weeye fiilkan maanta qalin jabisay waa meelaha aynu ugu baahannahay caafimaadku maanta waa ogtihiin dadkaynu caafimaadka wuxuu doontaa dhul fog buu doontaa ilaa waxaynu daadsannahay India intii tamarteedana waxay tagtaa Ethiopia maanta dalkeena caafimaadka marka laga dhimashada waa kii sheegay ninkii ugu horeeyay waa rate aad buu badan yahay inta umur raacda iyo inta carruurta ku dhimata iyagoo yar
waxaan u soo taagnaa cusbitaalka Hargeysa inaan habar wadaagnahay oo Ingiriis ka yimi oo 1972 koorsu tagay inuu sheekh baxay London UK oo intuu yimi koo ordiya oo kufay inankaas wuxuu dhintay oxygen la'aan cusbitaalka hadda waa oxygen kaasna kala gelinayo ka iskale waxa leh ardayda maanta wiilal iyo gabdhaba qalin jabisay waxaan idin leeyahay marka hore hambaliyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa wixii aad barateen ee aad ku soo tacabteen in ilaahay idinkana idinku anfaco idinkana dhigo kuwa dadka iyo dalkaba ku anfaca waxaa kaloo mahadda labaad leh waalidiintii iyo walaalihii iyo cid kastoo ka qayb qaadatay inaad maanta halkaas soo gaadhaan waxaa kaloo mahadda leh maamulka jaamacadda Hoon oo iyaguna muujiyey karti iyo dadaal midda kale waxaan aad iyo aad hambaliyo u leeyahay ardayda maanta qalin jabinaysa hor waxaanan aad u sii mahad weyn u siinaya gabdhaha anigu maalinta qalin jabiyey 45 sano horteed laba gabdhood baan ugu jiray maanta waxa aad farxad igu ah inay gabdhuhu majority-ga yihiin ay u badan yihiin waxa kale waxaan aad u hambaliyeenayaa dhammaan ardayda maanta jaamacadda ka qalin jabinaysa waxa la hambaliyo waana u ducaynayaa inuu ilaahay cilmiga aad barateen inagu anfaco waxaan odhan lahaa maadaama arday qalin jabisatihiin inaad noqotaan kuwii dalka iyo dadkaba anfaca qiimo weynna ku lahaada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal waxaana la inaga rabaa kow aqoonta aad barateen inay tusaale cad u noqoto ardayda maanta ku jirta dugsiyada sare iyo jaamacadahaba salaan kadib wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maanta waxa farxad weyn u ah inaan idinkala soo qayb galo anigoo agaasimihii guud ee tacliinta sare dufcaddan afraad ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Hoon jaamacadda Hoon waxay tahay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ka rajistar garaysan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland bisheediina markii laga qalin jabinayay waan joogay maantana waan joogaa aadna waan ugu faraxsanahay waxaan idin leeyahay hambaliyo goor gaaban waqti dambeenu ku jiraa rag badanna waxay ka yimaadeen madaxweyne ku-xigeenku ka mid yahay iyo wafdi kale Hargeysa waqti dambeenu ku jiraa hadal badani ma yaallo horta waa u hambaliyeenaynaa ardayda iyo macallimiinta iyo waalidkoodba hambaliyaan leenahay mar labaadna waa ducaynaynaa ilaahay inuu ka dhigo kuwii dalkooda iyo naftooda iyo dadkoodaba anfaca waxaa kaloo aad iyo aad u salaamaya hambaliyeenayana qalin jabiyaasha iyo waalidkooda waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan u hambaliyeeyo una barakeeyo maamulka jaamacadda oo ugu horeeyo Maxamed Cabdi Ismaaciil oo aniga si gaar ah aan ii taabanaysa xafladdu maanta sababtoo waa ardaygaygii 4 sano jaamacadda ku jiray macallin baan u ahaa sharaf ka weyn ma jirto in qofkii aad ababisay kuu ababiyey aad hambaliyeyso ka soo qayb galno xafladda ama qalin jabinta dafcaddii afraad ee ka qalin jabisa Hoon International aad iyo aad bay runtii farxad weyn noogu tahay ilaahay baa mahad leh inagoo maanta nabada xafladdan quruxda baan la isku keenay hadal intiisii badnayd waa la soo yidhi waayeelkii iga horreeyey ee madaxda ahaa ayaa runtii dardaaran iyo wacdi ba idiin dhameeyey maanta saa la sheegay waa maalintii ardayda maanta joogta ee 100 jajarkii ee halka qalin jabinaysa waa maalintiinii waxaan leenahay waa idin hambalyeynaa marka hore waxaan leenahay hambalyo hawsha aad soo gabagabayseen ee muddo dheer ku soo jirteen iyo dadaalka aad soo wadeen waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa in ilaahay idinku garab galo in waalidiintiinniina idin soo tabacdena waxaan ilaahay ugu baryaynaa in xasanaadka ugu daro
aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hooyo iyo aabbaha ina soo garab taagnaa runtii ee muddada 16 sano wax soo baranayseen halkaa ina soo gaadhsiiyey isla markaana waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinta runtii oo sidaan ka sheegeen dadaal badan u galay siday hawshan ay hayaan ee qaranka u hayaan qaybtooda ay tacliin tayo leh oo caafimaadka qusaysa u soo arday tayo u soo lahayeen aad iyo aad baan ugu bogaanayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiintooda runtii